nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu seexanayo ugu horreyn horta wuu soo weysaysan jiray, kadib firaashkiisa ayuu jafi jiray, kadibna wuxuu akhrin jiray adkaarta la akhriyo intuusan qofku seexan ka hor. adkaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray waxaa ka mid ah suuratu samad, suuratu lfalaq iyo suuratu nnaas. sidoo kale inuu akhrin jiray aayatulkursiga. ducooyinka sidoo kale nabiga laga soo wariyey oo loo baahan yahay qofka inuu akhriyay intuusan seexan ka hor waxaa ka mid ah باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. دعوينك النبي مركي وأخريه أيا وحا وسيحن جري dhinaciisa midig isagoo gacantiisa dhabankiisa saaraya